iyadoo toddobaadkan gudihiisa loo dabaaldegay sanad guurada 77 ee aas-aaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu dalacsiiyay tiro saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. xubnaha la dalacsiiyay waxaa ka mid ah laba xidigle taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska degmada Dharkinley Cabdifataax Malaaq Bishaar. laba xidigle Cabdifataax Malaaq Bishaar ayaa waxa uu horay u soo maray saldhigyada kale ah saldhigga Shangaani, saldhigga Xamar Jajab iyo haatan uu ku sugan yahay saldhigga booliiska degmada Dharkinley loo garan og yahay saldhigga Galbeed. dhanka kale naxariista, garaadka iyo deeqsinimada waa wax uu alle aadmigu ku beero. laba xidigle Cabdifataax waa samafale caawiya dadka danta yar ee u baahan garab iyo hiilo. waxaa lagu xasuustaa maamo danyar ah oo ku dhashay degmada Dharkinley in uu gaarsiiyay deeq isugu jirta lacag iyo raashin. waxa uu qayb ka qaatay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga maadaama degmada Dharkinley ay ka mid ahayd sida la sheegay degmooyinka amnigooda laga deeriyay, balse haatan amniga degmada uu yahay mid la isku halayn karo kana wanaagsan sidii hore. kabtan Cabdifataax Malaaq Bishaar haatan waxa uu ka mid yahay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dalacsiiyay. haatan waa saddex xidigle ama kabtan. waxa uu dalacsiintan ku muteystay sida uu ugu firfircoon yahay waajibaadkiisa shaqada. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, magaalada Muqdisho.